wiilhoog weeye waxqabadkiisana waa la arkaayo cadcid sacab laguma qarin karo inuu yahay nin qabyaaladaysto noqday maayarkani wuxuu noqday maayarka kaliya ee ka saameyn badan madaxweynihii dhammaayay dalka marna muuse abaal u galayo dee wuxuu ka rabay in adeerkiisa tooyko uu yidhi iwooguu ku fadhiiso kursiga isagoon lacagtii dawladda ku ololin ku kaambeyn garaynay inuu gaarigii halkaas ka dhigo qof walba soo arkay u jeexay waana iftiinta waxna way aragta cabdikariin waa nin ballan baan u malaynayaa inuu isagu markaa buuxinayo wiilhoog weeye waxqabadkiisana waa la arkaayo cadcid sacab laguma qarin karo waxqabadkiisa hargeysa iyo meel kastaba waa laga arkaa laakiin waxaa leeyahay ishii fooyooga way aragtaa waxqabadka cabdikariin axmed mooge qolada mucaaridka ee cabdikariin wax ka daba leheleyna waxaa leeyahay waxqabadkii soolteelko maayir soolteelko ayuu qaawiyey cabdikariin insha allah cabdiraxmaan cirana wuxuu qaawin doonaa waxqabadkii muuse bixi insha allah cabdikariin axmed mooge waxa weeye waa maayirkii caasimadda maayirka caasimadduna waxa weeyaan de kulli xaq dhowr buu laga midayo oo xisaanad buu leeyahay laakiin mar cabdiraxmaan baa ninkaasi abaal u galay cabdiraxmaan cirro marna muuse abaal u galay mar cabdiraxmaan cirro abaal u galayoo dee xusbigiisu buu ka soo sharxay marna muuse abaal u galayoo dee wuxuu ka rabay in adeerkiisa tooyko uu yidhi iwooguu ku fadhiiso kursiga marka mooge aanu wax kale horta sida kale waa nin magaraasa ee caasimadda u dhashay sidoo kale caasimadda hagaajiyey oo dooxuu ka soo bilaabay imikana wadooyinkii magaalada o dhan minores haddaan doodeeda kaga dhiibto kolley maayarku saamayn ballaaran buu ku yeeshay caasimadda iyo guud ahaan dalka ballaaran karaa weliba saamayntiisu waxay soo baxday kolley intaa doorashada kolley dhowr qodob baa looga daba qeylaya baaran karaa dhowrkaa qodob waxay noqonayaan kolley maayarkani wuxuu noqday maayarka kaliya ee ka saameyn badan madaxweynihii dhammaayay dalka kolley maayarku wuxuu qabsaday magaalo baaba oo bahalagaleena ballaaran karaa kolley caasimadda dee waa la garanaya nooca u ageed iminkana waa la garanaya nooca u agtay farqiga u dhexeeya isaga iyo maayarkii ka horreeya maayar solteeko xukuumadduna ay ku haysataa markaasi maayarku kolley dee dayrkii makamuu gubin laakiin maayaru keliya waxa uu sameeyey xusbiguu ka soo baxay ayaa uu markaasi garabkiisa istaagay kolley maayarku wuu sharaxnaa horena uu ballan qaado kolley codkiisaasi wuu duuban yahay maayir mooge horta wuxuu qabtay taariikhda xusi doonto wayn ogeyn markuu caasimadda qabsadayde siduu salteeg kaga tegey waxayd meel baaba iyo waddooyin googo'an bahay maahayn ina maanta la qabsado inaan laga daba qayriyo maayir mooge waxayd ina taalo loo dhisahayd intuu maxaahayd intuu xilka hayo ka hadlo cabdikariin axmed mooge horta waa qofkii ugu saamaynta badnaa xagga doorashada marka laga iyo kaambeynka waana maayirkii jamhuuriyadda somalilan caasimadda hargeysa maayirka waxaana arki karaa dadku badanaa waxay carabka soo marmarinaya inuu yahay dee nin qabyaaladaysto noqday hortu markaynu runta isku sheegno maayirku wuxuu ka soo baxay xusbu ka soo baxay unbuu maantana taageerayaa oo dhisaya soo maad garan sidaa daraaddeed markaa ma odhan karo maayirku maanta wanagaa wada arkayno magaaladeena siduu u dhisay iyo siduu u qalabeeyey iyo siduu dee magaranaysa maayiradii hore say ahaayeen maayiradii hore way hadleen oo waxay yidhaaheen maanta cabdikariin axmed mooge markuu maanta wax qabtay annaga inaanan markii hore annagu baaba aanu ahayn ayaanu tilmaamaynaa markaa sidaa daraaddeed waxaan leeyahay maayirku si wanaagsan amba dariiqo wanaagsan buu hayaa waxaanu leenahay markaa wax qabyaalada leydhaana ma jirto caadifad aynu sideenna dadkeennu sideennaba bulshadu meel khaldan ba wax ka eegaan meesha saxsan aynu inaan wax ka eegno ayaana wanaagsan maayirku horta marka hore cod buu ku yimi codka uu ku yimina de codkii shacabka jamhuuriyadda somalilan buu ku yimi cid ka qaadi karasa oo haba yaraatee jirtaana ma jirto codkii uu ku yimi ninka ka qaadi kareen annagaale noo kaale maanta waan kula joognaa cabdikariin ilaahay haddaayo dee waad aragtaa oo indhihii caafimaadka qabaarka hargeysa maalintuu qabsaday waad ogeed waddooyinkan aynu ku taaganna iyo tan iyo taa iyo taa iyo taaba waad ogeed siday ahaayeen maantana waad aragtaa intaa waxa dheer meel kalabaha ka eegine sida goobaha beerta xorriyaddoo kale meesha gacanta leelaa qodhan tilmaanteeda ka qaado biriishka kale isna halkaa ku yaalla ee biriishada markan kaa soo qaata kilalka waad ogeeda xaafadda kilalka markuu roobka doon looma kala talaabi jirin iminkana waad aragtay marka boqolkiiba boqol anigu waxaan odhan karaa maayirku waa maayirka qura ee magaalada hargeysa wax ka qabtay iftiimiyey waxaan ku yidhi sida quruxda badan inoogu dhigay waxaanu horse inoogu yahay weliba kolley isagu dee uu iska tegi doonaa oo shantiis sannadood way dhammaan doonaan laakiin ka dambe ee yimaada ayaynaan macaal yeelay waxba lama qaban karo waayo indhihii buu inoo jeexay hargeyso indhihii u jeexay hargeyso way dhalaayad markii hore laakiin wuu qalay indhihiina wuu jeexay waana iftiinta waxna way aragta macaal maayirka dambe ka dambeeya ayaan
ayaan haddii albadkada leeyahay aynaan ka yeelin inuu yidhaahdo ama baayin lama qaban karo waayo waxbuu inoo sheegay aad iyo aadna waanu salaamaya waanu mahadsan yahay boqolkiiba boqol ilaahay ha karaameeyo ilaahay jannatul firdaws markuu dhintana ha geeyo markaa waxaan leeyahay nin qabyaalinina maaha nin qarannimadu ku weentay weeyaan nin Soomaaliland oo israacsan oo midnimadeedu ballaarantay doonaya weeyaan nin maanta Soomaaliland haddii runta laga hadlayo maayro badan baa soo maray ma fahanti waa maayirkii ugu wax qabadka badnaa ee Soomaaliland soo mara maanta waxa ku cadeyn ku ah isagoo lacagtii dawladda ku ololay ku campaign gareynay inuu gaariga halkaas ka dhigo qof walba soo arkay talabaad caasimadu waxa u baahan tahay madaxweyne la shaqeeya maayirkan inoo shaqeynay madaxweynihiina wuxuu ku qadmay maayirkiina wuxuu ku qasbay madaxweynihiisii la shaqeynay inuu doonto kan ma wada shaqeyn karaan isweydiidaarsan ayaa ka jira marka horta marka hore ilaahay amniga iimaan ilaahayna siiyo nabadgelyadu nin walba waa wadan nabadgelyada cid walba way deydaysaa nabadgelyadan ayaan ka hadlay anigu dalku wuxuu u baahan yahay nabadgelyo u baahan yahay waxa weeyaan ninka maayirka ayaa loo hadal hayana waa nin horta min libaax weeye ninku ma garatay ninka markaa waxa lagu hadal hayo imaka loo xagxaganayo ma garan karo anigu nin wax qabad la weeyaan nin ummadiisa u shaqeynaya weeyaan nin dalkiisa ka muuqda weeyaan oo sida uu sameeyo wadooyinka iyo dhan walba haday haato waan aragnaade marka ninka maayirka waxa lagu haystaa kulli waa khalad u maananu warka raygayga nin si fiican u shaqeynaya weeye nin qabyaalaysta maaha Soomaaliland isu duuban buu rabaa isagu inuu soo wada saaro si fiican u wado si fiican u hogaamiyo insha Allah ta'ala marka waxaan rasheenaynaa doorka ku xigana insha Allah ta'ala in madaxweyne dalka ka noqdo isagu ba dadkii iyo ummadii isku soo jiidi kara ummaddu uma baahna in la kala tafraaruqo in la qabyaalad ummaddu uma baahna ummaddu waxay u baahan tahay dad walaaleeya horta waxa weeye aad iyo aad buu xuquuq qabtay intii maayirada loo doortay Hargeysa kulli uu Hargeysa ma lahayn laakiin in badan oo imanayay isku aragti ma imika xaqabashada tii hore marka waxa weeye dad badan oo dhaliilay halkii dhaliilahaas waxa qaba iska hadal meel waay marka maayirkaas saameyn badan buu leeyahay waxa weeye waana maayirada Soomaaliland baa loo arkaa maanta kulli aragti aan qabo marka aad baan soo weynayaa guuraha soo weeyay xisbiga iyo saameynta uu keenay waa mid boqolkiiba waxaan ku 90 oo wala ka aad iyo aad baan markaa uga mahadinayaa soo weeyay soo shaqeynayo hatta tahay muwaadiniinada iyo xisbiga taayba